رمضان مبارك كولي ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شعر اللذيذ فيها. السلام عليكم أصحاب تقاليق السود وهذا من البعدون كجوكتين وقبليني إفرح أهاد يا أوني وضو سودوين رمضان مفانتين سودو هذا نلاقي هاي رمضان مبارك أنا نلاقي هاي من البعدون كجوكتين وأنا يصود هاي ملسلي كرا لكن ستيل دي وقتي فيديو غني سو جارا رير سومالي يا waxaan u maleynayaa inay saqdhaxanay tahay kuleybo waa la dhafraa mafahanteen yaa suxuurta la sugayaa soo marka anyways anaga weli noo lama soomin mar walbo dadka waa ka dambeynaa mana naqaano sababtu waxay tahay soo marka ramadaantii isku diyaarinayaa mafahanteen waxaa rabaa dee inaan guriga aan ka dhiga dee guri hadal iyo hubin toona aana karin dee ifrax maxaa ku taqaaneen inkastoo muuqaalka aad iyo aad aan igala soo raagay haddana dee wixii soo daahaa kheyrka ku jiro soo maahan wallaahi caajis daal fara badan aniga dhan si kale I don't know wallaahi ramadaantan aniga dhan waxaan dareemayaaba inaa macnihii uu culeys isaaran yahay ma aqaan sababtu waxay tahay alxamdulilah shukr bil caalamiin mar haddii caafimaad la qabo laakiin aad iyo aad aan iga soo daahay laygama baranin muuqaaladeeda inay sidaan usoo daahaan fahmaysaan already hadda muuqaalkan codka aad duubaya aniga 4 habeenimo iyo hordho ii tahay yaa suxuuran rabaa ma fahanteen waa suxuuran rabaa si kale mataqaaniin inaan soo muca iga harsan yaa ina afka xirto waxa iga harsan 2 saacadood iga harsan 5 laba iga harta bis hal saac iga harta ma fahanteen soo marka muuqaalka aad iyo aad u soo daahay aan iga raali gelinaya subscribe ka noo saar hadii 400 kun u gaarno yaa noona like gareeya share gareeya ma fahanteen wakaasahay kaal iska arga kugu dhahee aniga horta daahiyadan waxaa xirtay 3 bilood ka hor xirtay soo marka waqti badan ba kama soo wareegin waa wada ogeedin dee lacag aad qaal u ahna waa la igu xiran fahmaysan ana horta waay daahideyda suuqa kama soo jaro oo waa dalabaad waay soo marka waa la ii sameeyaa fahanteen soo marka waxa taaganahay anigoo yaa bilooyin ka hor lacagta intaas la ka bixiya haddana daah kale ma soo gaday waayo waa qalad soo maahan soo marka alaabteena dee waxba kamaana bedelin qadadii ay igu ogeedeen iyo fadhiga ay igu ogeedeen waay alaabtan waa rabay inaan bedelo laakiin marka la igu dhahay qiimo aana macquul ahayn wallahi waxaa dheh alaabteeda inta gadi lahaa decorationka baan u bedelayaa ma ahan alaabteeda ma gaday waayo alaabta qiimaha ka soo bixisay si qaali u yihiin iyo sida dhulka lagu la jaray isma balahan dadku waxa leedahay ma waxay rabaan meel cidla inay wax ka qaataan ma rabaan isleedahay I don't know sababtu waxay tahay ilaa hadda waa garan la fahanteen xaasidnimo waxa taagana waa bismillah isticmaala qashinkaana ku daraya ayaa taagana ma fahanteen xaasidnimo hooyada daafeed ana dhameeyay because marka lagu dhaho alaabtaada qiimo aysan u qalmin ciila ku qabanayo fahmaysaan soo marka reason kaasa keentay in aan alaabta waxba aan ka bedelin fahmaysaan 3 ramadaankana 3 ku ee alaabtan inta hadda aan dee ii sheego aan soo waxeenayo soo marka ilaahay ramadaanka dambe hana gaarsiiyo markaas la hay aadamahane lacagta ay ka soo bixiyay ay wali dhigteeda ka dhawaaqaysa kugu dheer qiimo yarna alaabteeda never ina ku dhiibaa taaganahay marka kaasa buugiya lagu silicsan yahay buugaagtan fake lagu silicsan yahay in la xirxiro fahmaysaan soo marka kaasa waxaa rabaa decorationka guriga inaa ka bedelo koleybo inaa ka heli doontaan rajeynaya aniga waa ka helay aad iyo aad oo ii qanciyay muhiimadana dee aniga ku nool moogtiin aniga waa inuu ii qanciyaa soo marka idinkana hal iyo labo wax ka soo dhaha ma fahanteen hal iyo labo wax ka soo dhaha guriga yaa kaal iska arga koleybo gurigan waa taqaaniin sonkortiisa meesha taale هذا موتوين وقشاواني قرالي قليلا فردقيا إنا فديست دال درتيسا كوكو ده قولك حتى ويقلي لها يا سكلا منطقاناني آدي هذا قدالي والله بالله يقصو أرض معهن هول قبنا يقصو أرض مرنوا معهن فهميسان دمرك والله مساكين يالوا يا أخي ودمرك والله دمرك الصومالي هذا يا صامرك كاسا إن
waxa fiirinaya miiski inay wax ku soo baxay in kale aniga horta markaa dhaho waxaan decoration gareysanayaa waa saara miiska halkaas istaaga kaliyaha qabsana waa fiirinaa hadduu wax ka qaldan yahay haddana waa bedela haddana waa soo laabanaa waa fiirin isla waayela qoftaana kugu dhawa 80 jir ma fahanteen dheel wax ma dhinta والله أنا أصلا يا ورك قررت معك قلدن معنا وصنت أصلا يا معك قلدن موسى ما تروح عندها يا سوكلية وروا قروح سوكلية وروا قروح دوا قروح ما أنت اللي بتقول قروح وعسلا أنا نيت مقولي سوي عمل قاف مكوتورو يا كان لعقت إلى النقالة يورو يا عمل أصلا أنا الجروب فيرنا أذكر يا وحتى تاجنا قاعد أذكر حرتك لعقت إلى النقالة يا عرفتها يا تاجنا ما فهمتين سامركا إن الكاس لك استاجا جورج مركا هجاجيو وفيرنا مركا أركو إنسان يا وحي قروح بدنا هذا نص كلا كديجا ما أنت اللي بيتوان كولا بيني مش هيك مقال كان وشي زقرت عقلي 5 saac oo habeenimo gal guriga hagaajiska waxaana ka baxay hadda oo 4 ay tahay kaleeyba 4 barrooni soo gaaraya markii aniga ay tahay idinka ma aqaano inta saac ay tahay ma fahmaysaan soo marka qosolka iga dhamaad ana isku qosolabo guriga horta dabiici dacala u dhaqay meel walba ka dhaqay jikaha dhihin meel walba ha dhihin maacuuntii kugu dheey kala bar waadaadii sida horena igu soo sheegay ya cajafki dhan waayo maacuunta anay isugeysaa mogtiin gabdho waxa arkay ifraaxay maacuun sanad ka hor daadiya ay dhahoosaayay igu dhaano 40 sano ka hor 20 sano ka hor yaa maacuun noo taala aniba guriga hooyaday saas oo hooyaday waxa ma tuurtabo wallahi bila reasonka wax tuuro oo ilaahay igu sallida reasonkaasna waxa keenayo gurigeena waxa la matuuri jirin ayeeyadayda mooyaha ee ka dhimato guriga ku dhax arkay way ilaahay qawi jira alaabtan badana ana ku qornaan jira ma fahanteen markaas alaab la dhaqa waa la dhaqa wax dhamaanay mala maanta 12 ka cajaf le socdo wixii la socdo ciila way qaban jiraba markaas hada shay tuurana wali dili jiray warle alaabteeda iga tuur laakiin kan ana leh ma aha waa daba gidinay hada daraad marka alaabta ay tuuray wallahi wuu yaabay saaxiibkayga tuur kan le ku ay wax ada alaabta dhan ma soo wada bixisa marka ramadaanta ka fikiraya ma fahanteen iga ma ahan tuuristas wax kale iga ma ahanay inaan dhaqo ag soo horjeeda waxa dhaqo ina waaye aan rabaa ma fahanteen wallahi billahi soo marka alaab dhaqooga xanuun waaye guriga markay walaashaa kula joogto wallahi sometimes aan ramadaanka familkeyga waa iska tabaa siiba marka afurno kale hooyaday way noo sheekeen jirta markii aan afurno kale yaa sheeka iska geli jirna waaye inooga sheekeynay maanta 12 ka kugu dhahe yaa kaal is arkooydi qof aad u sheeka badan waay one day waa arki doontaan insha Allah kulli inta waa soo fadhiisin doona ana horta familkeyga ma jeclo kaamiro laakiin one day waa soo fadhiisin doona yaa kugu dhahe maalin oon ama ha dheeraata ama ha dhawaato ma fahanteen hooyaday aad iyo aad ay u sheeka badan tahay walaa qofkii yaqaano anaga meherad yar aan u furnaan jirto oo sambuuska lagu gado oo burka lagu gado oo mashmashka lagu gado oo shaaha wax walba lagu sameeyo dukaan iyo waxay ahayd iyo oo isku dhex jiray ahayd markaas wallahi gabdhaha xaafada dhan ya maamooyinka waxay jireen islaantaan gabdhaha yar kama u sheegta wallahi billahi gurigeena sida loo buuxo uma mareysan kartid hortiisa maanta 12 way soo galay 10 way baxay 10 way soo galay 10 way baxay ma sha Allah wallahi billahi in yar waxa aheena ku guray oo farxad ku nool ayaan fahmiisaan heer waxa gaarna kabaheena reeraa dirs ahaan jirnay ilaa had reeraas isku fiicanaay marka iigana ma sha Allah waa dad iska badan muuqaalkan ay daawan doonaan igu soo qosli doonaan comment ka soo bixin doonaan waxa dhacday waxay sameyn jireen way imaanayaan musalsalka la wada daawana ma la wada daawada dacaski markaas dacaski hore u qaadanay subaxda dacs dhan ma yaalaba adana waa la soo gaday adana way qaadan marka dambe dacsiyaasha dhan waa qarsanay ilaahay amarkiis qosol wala markaas wax xasuusto gabdhahaas wala markaas la hadalnaa ku guday waa fuurnaa hal saac wada qosolnaa wallahi billahi soo marka guriga sidaan ku soo baxay ka sheekeeya inaba caadi ma ahan romantic miya mas ramadaan waa ya 14 February miya bas waa ramadaan guriga على يلا وحق صنابه أنا أدت مركز دوعنا كان
romantic uu egaa in lagu wada sheekaysto la fadhiisto loo egaa maalin ramadaan meesha aanad ma ka soo socota camal ay taagana walahi bilaa miis casho loo diyaariyo loo ila ekaadaba miiska oo laba qof isku la sheekaysan rabto soo markaa decoration kan oo daaha u eg mootada maqlaysaa nigra la gelinaya waayo balkoonka fadhiga decoration kan oo gaduudka aan ka dhigay daaha soo faanteen laakiin wallahi aan aad iyo aad ugu helay idinka waxaan rajeynayaa in aad ka soo heli doontaan hadaadan ka helinina aan waxba iigama gelin qofka qarashka galay waa aniga qofka maanta dhan hagaajinayo waa aniga faanteen qofka ku daalo waa aniga soo markaa intaas kaftan waay fahmiisaan aniga idinka kaftanku naga dhaxeeya lama kala xanaaqaan waaye yaa soo markaa kaasa wallahi bilaa waa qosol marka arka wada guduud aniga dhan qosol ka bixi waay waxa meesha la isku sheekeysanooyaa anyways muhiimada waxa waaye guriga inuu decorationkiisa uu isleeyahay oo is soo jiidanayo yaa waay muhiimada ma fahmaysaan soo marka aniga aad iyo aad ugu qurux badan yahay idinkana hal ilo wax ka soo dhahaa baalkaas kutaabka la saaro asoo yar oo ilo aabal ii keenay horta shaan waaba tuuga miiran walaa bilaa wax weyn lagu tusaa wax yariisa lagu keenaa aad bilaa mishadar jim aad oo la yaabay marka muuqaalkaanayta dakeeshaan meel fogeeya daarabtiin inaa is dhibo oo aarabtiin inaa ii sheego si qurux badan wax u soo duubo oo aarabtiin inaa ii sheego aan cunto kaala aragday qoftaan cuntada way ku tagtay faandeen kii chicken ahaa kii hilib ahaa kii sambuus kii sasan iyo soo dhisaya gabdho si kala ma taqaanaanay inkastoo aad u daalanaa walaahi hadda waa labalabeenaya biri ma sameysaa sambuuska balaanka ka soo gadata isdhooya dib dhan ma jecel ma fahanteen laakiin ilaahay waxa ka rajeenayaa inaan caajis iyo waxaas aan dareemin oo aan kaco inta soo gadi lahaa oo aan sameeyo ma fahanteen soo marka insha Allah muuqaalkaanayta dakeeshaan yaa commentiga ka arki doonaa videogan faantiin hadda videogan ka heshaan commentiga ka arki doonaa markaas anigana waxa ahay ifraxa leedahay anigana yaa markii dambe waxa u soo gelinayaa kugu dheesiya inaba caadi ahaan iyagu soo tuuraan faantiin kadibna uun siya soo qaadaya kugu dheey waa is dhibay waxa is dhibay uun siir dhac ku sii kaalis karaga kugu dheey yaa inaba caadi baaha inkastoo uun siga naqas ah ku qabo waxa saab isku arkaba bismillaah uun si mashita aniga dhan cabura ay qabanaa waa xirmaya والله بلا أنسك أصدقين كدرتينا وشذا جعل أقوى ومشذا ساسينا بتقولي باي باي.